munaasabad ay ku qalijabinayeen ku dhawaad 150 arday ayaa dafcadii 12aad ee ka qalijabisay jaamacadda Lugaal ee ku taala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhamaysay kuleedaha kala duwan ay bixiso jaamacaddu. xafladda lagu qabtay hoolka jaamacadda Lugaal ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka kan degmada, wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo horumarinta jidadka, ganacsato, waalidiin, marti sharaf bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyntii waxaa halka ka hadlay maamulka jaamacadda oo ka warbixiyay marxaladii ay soo martay jaamacaddu. anigoo ku hadlaya magaca iyo maamuuska jaamacadda Lugaal, waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo jaamacadda Lugaal qayb ka qaadatay inay halka soo gaadho. waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadkiina ku daro. waxaan maanta hortiina ka cadaynayaa kadib markaan dhageystay xafiisyada hormuudiyada kulliyadaha, markaan dhageystay xafiiska akademiga iyo registrationka, waxaan maanta hortiina ka cadaynayaa in marxaati gelinayaa 139 arday inay ka qalin jabinayaan jaamacadda Lugaal. maanta waa maalintii aad sugayseen, idinka mudan in la idinku horeysiiyo. ilaahay cilmiga aad barateen ha idinku anfaco. dhagan kale waxaa iyaguna halkaa ka hadlay marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladda ay ku qalin jabinayeen ardayda dhamaysay jaamacadda Lugaal. ardaydu ku qalin jabinayso 139 ka hambalyeena waxaan leenahay hambaliyo noqda insha Allah ta'ala ku baraara ku barwaaqooba waxaad barateen. Allah inoo sahalay uu yiri wattaqullaha wa yu'allimukumullah. qofkii doonaya inuu wax barto ama guul gaaro aqoon yeesho, Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay isagana ka cabsano. Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay hambaliyo dadaalkaas soo samayseen. hambaliyo waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Lugaal. waxaan leeyahay hambaliyo. maalin farxadeed weeye, waa maalin uu gobolka Sool dhammaan guri waliba uu faraxsan yahay. sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay maayarka degmada Laascaanood, gudoomiyaha gobolka Sool, wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland. waxaan leeyahay dhammaantiin hambaliyo waxaan u mahadnaqayaa waalidiintii tacabka badan soo geliyay. hambaliyo mudan tahay iyo farxad bay goobtan mudan tahay. ilaahay waxaan idinka baryayaa in muddada dheer aad soo tabcaseen, aad soo baranayseen, inaad noqotaan kuwa ku faa'iida. waxaan leeyahay hambaliyo munaasabadan kullu maqaam lahu maqaal. maqaalka meeshan waxa weeye inaan u hambaliyeyno una bogaadino waalidkii iyo macallimiintii ardaydan quruxda badan maanta oo halka ka qalin jabinaysa ku soo tabcay. gabagabadii waxaa shahaado sharafiyo iyo shahaadooyinka ay muddada dheer sugayeen la guddoonsiyay ardaydii dhamaysay jaamacadda. ardaydii dhamaysay kuleedaha kala duwan ay bixiso jaamacaddu. Khadar Tarabi, Kalsal TV, Laascaanood.